waa qiso ku saabsan dembigii ay caddayntiisa daaha ka qaaday kamarada qarsoon ee ku rakibnayd madaarka magaalada Dubai iyo meelo kale oo ka tirsan dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Howlgalka dembiga lagu fuliyay waxaa ka qayb qaatay ugu yaraan 27 ruux oo sita baasaboorro foojari ah, inkastoo aanay filaynin in cidi ogaanayso falkooda isla markaana ay ka baxsan doonaan cadaaladda. dowladda Ingiriiskuna waxa ay caddaysay in Israel ay samaysay baasaboorro foojari ah oo British ah oo ay fulinta falkaasi u isticmaashay. haddaba maxay ahayd qisadaasi sidee bayse ku bilaabantay? jawaabaha su'aalahani waxaynu kala soo dhex bixi doonaa barnaamijkeena. abaaro 2:55 daqiiqo oo duhurka dabadiisa ahayd 19 bishii January sanadka 2010 waxaa madaarka magaalada Dubai soo gaaray shakhsi ka soo kicitay magaalada Dimashq kaasoo ku safrayay magac been abuur ah kana taxadarayay inaan cidna ogaan inuu ku sugan yahay magaaladaasi. laakiin kamarada qarsoodiga ee madaarku waxay ahayd mid muuqaalkiisa qabatay xilligaasi. shakhsiga halkaas soo gaaray waxa uu ahaa Maxamuud Mabxuub oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Xamaas ee reer Falastiin, iyadoo Israa'iil dhankeeda ay Mr. Mabxuub ku eedeynayay inuu yahay ninka soo iibiya gantaalaha Xamaas ka soo ridaan marinka Gaza ee lala beegsado meelo ka mid ah deegaanada ay Israa'iiliyiintu degan yihiin. Maxamed Mabxuub oo gaariga madaarka ka qaaday uu geeyay hoteelkii uu ku degayay ma ahayn mid rumaysnaa inuu muddo 5 saacadood oo kaliya naftiisa ku waayi doono. maalmo ka bacdi booliska magaalada Dubai waxay bilaabeen baaritaan ay ku doonayaan inay daaha qaadaan dambiilayaashii geystay falkaasi dilka. waxaana howlgal baadhiseed oo ku socda nidaam booliseed oo dhab ah kadib la ogaaday in 27 ruux oo sita baasaboorrada 4 waddan oo reer Yurub ah ay yihiin kuwii fuliyay faldambiyeedkii lagu dilay Maxamed Mabxuub, isla markaana ay hay'adda sirdoonka ee Israa'iil ee Mossad ay soo abaabushay howlgalkaasi. waa kan taliyaha booliska magaalada Dubai General Dahi Khalfan. لماذا يحاولون يعني أن يظهرون بأن هذه الجريمة ارتكبت من البريطانيين ومن الإيرلنديين ومن الإسرائيليين؟ ما أها مترته إن دمان ودمده أي دنبيلياشو باسابورده siteen ay isu kaashadeen in dalkayga ay dhibaato ka dhex sameeyaan, laakiin howlgalkan cidda fulisay way caddahay waana dalka Israa'iil. 12 ka mid ah baasaboorrada ay dambiilayaashu siteen waxaa lahaa dalka Ingiriiska, iyadoo dadka sitay baasaboorradaasina ay dhammaantood ku dhasheen gudaha Britain laakiin ay ku noolaadeen dalka Israa'iil. Paul Kelly oo ah muwaadin British oo degan dalka Israa'iil waxa uu ka mid yahay dadka baasaboorrada la foojariyay lahaa laguna fuliyay howlgalka dilka ah ee Maxamuud Mabxuub. waxa uu sheegay inuu aad u naxay markii magaciisa oo ay raadinayaan booliska caalamiga uu ku arkay liiska dadka Interpolku ay daba socdaan. aad baan runtii u naxay ugana werweray noloshayda. waxa la xaday aqoonsigaygii laguna galay dembi dil ah. in qof aqoonsigiisa la xado waa shay aan bannaanayn, waxaase jirta inay tahay arrin weligeed soo dhacaysay. wixii xilligaa ka dambeeyay waxaa saaxadda ka qarsoomay dadkii asalka u lahaa baasaboorrada la foojariyay xilli aanay Israa'iil dhankeeda sheeganin howlgalkaasi, sidoo kalena aanay dafirin. isla maalintii uu Maxamuud Mabxuub soo gaaray magaalada Dubai waxaa kaloo halkaas soo gaaray xubno ka mid ah 27 shakhsi ee falka fulintiisa u xil saarnaa. 6 ka mid ah xubnahaasi waxay la socdeen diyaarad laga leeyahay dalka Imaaraadka oo ka soo duushay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. kamarada qarsoodiga ee madaarkuna waxay qabatay 2 ka mid ah 6 xubnood oo ka soo gudbaya goobta checking-ka, kuwaasoo sitay baasaboorro British oo macmal ah, iyadoo ay si kadisa isaga daba imanayeen dambiilayaashu kuna ballamayeen goobaha waaweyn ee magaaladaasi sida hoteelka 5 star oo ay degeen. inkastoo aanay xilligaa garanayn halka uu rasmi ahaan degan yahay qofka ay raadkiisa ku joogaan ee ay dilkiisa u yimaadeen. kamarada qarsoodiga ee mid ka mid ah hodheelada waaweyn ee ku bahoobay magaca 5 star hotel ee magaaladaasi ku rakibnayd waxay qabatay haweeney sidatay baasaboorka dalka Ireland oo degaysay hoteelka, magaceedana ku sheegtay Gail Folland, taasoo qolkii ay hodheelka ka digtay u isticmaashay sidii xarun dhexe oo ay ka hagayso howlgalkii socday. saacadihii ku xigay kamarada qarsoodiga waxay qabatay mid ka mid ah kooxda dambiilayaasha ah oo soo galaya hoteelkaas, halka sidoo kalena ay isla kamaradaasi laga helay
muuqaal muujinayay Mrs Gail Follard oo kasii baxaysa hoteelka iyadoo sidata kiishash kala duwan. goor dambana la arkayay iyadoo si degdeg ah u gashay meel suuli ah oo hoteelka la leeyahay si ay maryaha u bedelato oo isu qariso. sawirkaasi oo isna laga helay kamarad kale oo qarsoodi ah oo hoteelkan kale ku rakibnay, taasoo fashilisay timo buruko ah oo ay soo xiratay intii ay suuliga ku jirtay. xilli oo ninka labaad ee kooxda ka mid ahna isla goobta ku soo xidhay timo artificial ah iyo weliba muraayadaha indhaha oo uusan markii hore xidhnayn. markii Maxamuud Mabxuux ka soo degayay madaarka magaalada Dubai, waxaa la arkayay nin telefoon wata oo agtiisa maraya, kaasoo markii dambe baaritaanka ay boolisku sameeyeen lagu ogaaday inuu ka mid ahaa dambiilayaasha isla markaana ilaalo ka hayay xilliga uu soo degayo sarkaalka ka tirsan ururka Xamaas. waxaana la daba socday ilaa hoteelka uu degay ee Bustana Rotana oo aan sidaasi uga sii durugsanayn gegida dayuuradaha ee magaalada Dubai. khubarada dhinaca ammaanka ee bariga dhexe waxay isku raaceen inuu dilkiisa ka hor uu isagu galay khaladaad ku saabsanaa dhinaca ammaankiisa. waa kan Mustafa Calani oo khabiir ka tirsan macadka baaritaanka ee gobolka Khaliijka. ارتكب غلطة كبيرة بحجزه تذكرة سفر عبر الانترنت. waxa uu khalad weyn ku galay inuu tigidhka safarkiisa ku dalbado internetka. Israa'iiliyiintuna waxay si joogto ah ula socdeen dhaqdhaqaaqiisa internetka. khaladka kale ee uu galayna waxay ahayd in aanu haba yaraatee wadanin qof ilaalo ah. markii uu Maxamuud Mabxuux soo gaaray hoteelka Bustana Rotana, waxa uu gudbay maqsinkii uu ka deganaa oo nambarkiisu ahaa 230. waxaase meesha uga sii horreeyay xubno ka mid ahaa dambiilayaasha, kuwaasoo laba ka mid a oo iska dhigayay ciyaartooyda tenniska ay la raaceen wiishka si ay u xaqiijiyaan qolka uu degan yahay. muuqaaladii laga helay kamarada qarsoodiga waxay muujiyeen in mid ka mid ah dambiilayaashu uu kireystay maqsinka ka soo horjeeda qolka uu deganaa Maxamuud Mabxuux. markii uu suuqa u dhaadhacayna waxaa dambiilayaasha u suura gashay inay qolkiisa ku rakibtaan qalab ay kula socon doonaan dhaqdhaqaaqiisa. sida ay booliska dalka Imaaraadku sheegeen, waxaa hubaal ah in ay cidda dishay Mr Mabxuux ay taageero ka heshay garabka, iyadoo kamarada qarsoodiga ee madaarka Dubai ay kashaftay nin dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo kooxda dambiilayaasha kula kulmay garoonka diyaaradaha dhexdiisa. waxaana la aaminsan yahay in shakhsiga Falastiiniga uu xilligaa dambiilayaasha siiyey macluumaad ku saabsan Maxamed Mabxuux qaatay dilka Maxamed Mabxuux, iyadoo goor dambana booliska magaalada Dubai ay xukun ku rideen 2 Falastiini oo ay ku eedeeyeen inuu taageero ka geysteen dilkiisa. Hamas 13 ka mid ah kooxda dilayaasha ayaa isugu yimid hoteelka Bustana Rotana iyagoo sugaya ka soo noqoshada suuqa ee Maxamed Mabxuux. xubnaha qaarkood waxay ku sugayeen qolka hore ee soo dhaweynta, kuwo kalena waxaa lagu diyaariyey dabaqa labaad ee hoteelka. waxyar kadibna waxaa soo gashay haweenaydii kooxdan ka midka ahayd iyadoo si degdeg ah ugu gudubtay maqsinka ay deganeed ee nambar 237. muddo ka bacdina waxaa soo galay hoteelka 2 nin oo kale oo ka mid ah kooxda wax dilaysay, kuwaasoo sitay alaabooyin kala duwan, lana aaminsan yahay inay yihiin 2 nin ee gacanta dilka lahaa, madaxoodana ku daboolay koofiyadaha kala baxa oo ay wejiyadooda ku qarin karayeen. haddaba sideeba Israa'iiliyiintu ugu talagaleen in howlgalkaasi noqdo mid ciddii fulisay aan la ogaanin, iyagoo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 27 qof. Master Mishka bin David wuxuu muddo 10 sano ahaan jiray madaxii howlgallada ee hay'adda sirdoonka ee Mossad. khibradda aan shaqada u leeyahay markaan eego waxay ahayd in howlgalka loo diro dad aan ka badnayn 4 qof. sababta fashilatay howlwadeennaduna waxay noqon kartaa tirada dadka badan ee ay isku raaceen. Mustafa Calani oo ah khabiir ka tirsan macadka baaritaanka ee gobolka Khaliijka ayaa isagu waxa uu qabaa fikirka ka duwan. tirada badan ee howlwadeennada ah ee gaari kara 10 ilaa 15 oo loo diro goobta falku ka dhacayo waa nooc ka mid ah caalamka basaasnimada iyo fulinta howlgallada qarsoodiga ah. waxaana isku qaybiyaan 3 qaybood: qaybta falka fulinaysa, qaybta ilaalinta iyo la socodka dhaqdhaqaaqa goobta u xil saaran, iyo qaybta farsamada iyo qorshaha oo kooxda ugu horeyn meesha gaaraysa. abbaarisideedii fiidnimo isla maalintaasi waxaa hoteelka soo gaaray hadafkii la sugayay oo ahaa Maxamed Mabxuux, waxaana la dilay kadib 15 daqiiqo oo keliya markii uu hoteelka yimid, iyadoo 2 nin ay si degdeg ah uga dabagaleen qolkiisa kadibna ciijiyeen oo neefsiga ku caburiyeen. dilayaashu waxay meydkiisa agdhigeen quraarad furan oo ay ku jirto dawada wadna xanuunka loo isticmaalo
si ay u majara habaabiyaan dadka iyagoo qaab farsamaysan silsilad gudaha kaga xidhay qolkiisa dhanka kalena ka sudhay warqad ay ku qoran tahay fadlan buuqa ka yare muddo 10 daqiiqo gudahood dambiilayaashu waxay ka guureen hoteelka iyadoo kamarada qarsoodiga ay qabatay dhammaan dhaqdhaqaaqooda muddo saacada ka bacdina dhammaan kooxdii dilayaashu waxay ka ambabixeen magaalada Dubai iyagoo u kala duulay wadamo kala duwan oo caalamka ah halka meydka Maxamed Mabcuuxna la ogaaday muddo 16 saacadood ka bacdi howlgalka lagu dilay Sayid Maxamed Mabcuux oo kamid ah mas'uuliyiinta garabka militariga ururka Xamaas ee reer Falastiin oo kamid ah howlgalladii qarsoodiga ay sirdoonka Israa'iiliintu ka fuliyeen meelo ka baxsan dalkooda ayaa inkastoo ay gaadheen hadafkiisa haddana waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa howlgal ay ku galeen khaladaad kala duwan haddii ay tahay dalalka ay baasaboorradooda adeegsadeen ama nooca dili ay sameeyeen oo ah inay ciijiyeen Masar Mabcuux ilaa uu ka dhimanayay